kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta aan kaga hadli doono sheekada qaaradda qarsoontay ee Atlantis. Qaarad xadaarad horumarsan lahayd oo ay badu liqday, raadinteedii iyo ogaanshiyaheedii iyo ciddii wax ka qortay iyo wixii ay ka qoreen ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan soo dhawaada. ciddii ugu horreysay ee wax ka qorta qaaradan wuxuu ahaa la dhihi jiray Aflaadoon. Wuxuu ku tilmaamay inay ahayd qaarad aad u weyn, lehna dhismayaal casri ah, wadooyin waaweyn, ciidankeedii, kaabayaasheedii dhaqaale, ilbaxnimadeedii, dhalaalkii ay lahayd magaalada. Waa magaalo markii laga sheekeeyahay ay is leedahay waa sheeko xariir ama sheeko la alifay oo aad u qurux badan markii loo fiiriyo casrigii ay jirtay xadaaradan. Xadaaradan waxay ahayd xadaarad ilbaxnimo leh, qurux badan, dhalaal leh oo markii loo fiiriyo qarnigii ay jirtay waxay u ekeed inay ahayd sheeko xariiro. Okay, sidoo kale waxay ahayd magaalooyin aad u waaweyn, dadkeedu waxay ahaayeen dad hantiilayaal ah, waxay ahaayeen dad aqoon-yahano ah, waxay ahaayeen dad nolosha wax walba uu qof hamiyey dad leh ayay ahaayeen ilaa ay kibreen ay gaareen inay hamiyaan in qaaradahan Afrika iyo Yurub inay u gumaysi tagaan, laakiin waa hami kaliya ma aysan rumaynin riyadoodii. oo riyadoodii waxaa kasoo ka martay duqyaankoodii iyo qooqoodii in dhulkii uu la dumo. Halkay dhacdaa Atlantis markii la yiraahdo? Horta Atlantis sheeko xariir ayay dadka qaarkood ama qoraalyahanada qaarkood waxay ku tilmaamaan inay ahayd sheeko xariir la qoray. Qaarkoodna waxay ku tilmaamaan inay ka weyn tahay sheeko xariir ay ahayd qaarad jirto. intaana ka hadlin halkii ku taalo maxay sababsatay. waa la isku khilaafaa, qaarkood waxay dhahaan dhul gariiro ayay ku dhuntay oo waxay dhacday marka horeba laba qaarad dhexdooda qaarad ku taalay ahayd oo dhul gariiro. Dunida waxaa ka dhici jiray dhul gariiro oo qaaradaha ay ku kala fogaadaan ama ay isugu imaadaan. Marka waxay dhaheen kala fogaanshihii dhulka uu kala fogaada ayay qaaradan la qarsoontay. Qaarkoodna waxay dhahaan badda ayaa liqday. Marka u imaan xagee dhacdaa Atlantis. Atlantis dadka wax badan ay ku sheegaan. Qaarkood ayaa ku tilmaamay inay dhacda Atlantic oo ay biyaha qariyeen. Kuwo kale waxay dhahaan saddexagalka Bermuda ayaa liqay. Qaar kale ayaa qaba inay dhacdo bartamaha saxaraha Afrika. oo saxaraha weyn Afrika bartamaheeda inay dhacdo. Qolyo kale ayaa qaba. Kuwo ayaa qaba inay ku taalo saxaraha Afrika ee Algeria. inay dhacdo alshaan ay ku duugantay bacaadkaas ay ka hoos martay ayay kuwo kale qabaan. waxaa jira mu'arriqiin muslimiin ah oo qabay inay ahayd magaaladii uu jinka u dhisay Nabi Suleymaan. waa maqashay umaleeyahay qisaska in ay jiray Nabi Suleymaan jinniye u dhiseen magaalo. Marka qaarkood mu'arriqiintu waxay ku tilmaamaan inay magaaladan Atlantis kala yiraahdo ay ahayd magaaladii Nabi Suleymaan ee jinka u dhiseen. oo mu'arriqiintu waxay ku tilmaamaan in darbiyadeedii ay ka sameysay nuxaas aad u dhalaalaysa ama ifaysa inay darbiyadeedii ka sameysnaayeen. qaar kale waxay ku tilmaamaan dadka taariikhyada ka sheekeeya inay qaaradan ay dhacdo qaaradda la yiraahdo Antarctica oo uu barafka daboolay. kuwo kale waxay ku tilmaamaan inay ku taal meel u dhaxaysa qaaradaha sidii markii hore aan ka soo sheekeynay. halka kuwo kalena ay leeyihiin qaaradani waxay dhacdaa Talyaaniga, Greega, Portugiiska. kuwo kale waxay leeyihiin waxay dhacdaa Malta. kuwo waxay ku leeyihiin waxay dhacdaa Qobrus. marka qaaradan halkee dhacdaa khilaafaad badan ka jiro oo qolyaha taariikhyahanada qolaba meel ay ku sheegtaan. qarsoomitaankeeda marka la dhahana waxaa jirta saddex dhacdo oo ah inay badda liqday oo calashaan gunta hoose badda inay magaaladan ku maqan tahay, inay saxaraha Afrika ay ku duugantay oo bacaadkaas oo dhul gariir dhacay dartiis ay dhulka ka hooseysay bacaadkaas maanta ku hoos jirta magaaladii. iyo kuwo kale oo qaba qaaradda barafka fadhiya ee Antarctica. waa qaaradda shanaad. muuqaal hore waxaa jirtay aan kaga soo sheekeynay qaaradan la yiraahdo Antarctica. haddii aad xiisaysid muuqaalka dib ugu noqo. okay, marka haddii aan baabi'eedii meelaha ay dhacdo waxay ahayd markaan ka imaano ma jiraan dadka badbaadin. dadkeedii wax ka badbaada ma jiraan. hadday jiraan xagee ku dambeeyaan. aqoonyahanada qaar waxay sheegaan in magaaladan dadkeedii qaar ka mid ah oo badbaaday ay jiraan. waxay u hayaan min halkaas iyo Latin America. waa dadkii aas-aasay xadaaradda la yiraahdo Maya. inaan maqasho umaleeyahay xadaaradda la dhihi jiray Maya oo beri ka dhisnayd Latin America ayaa jirtay. xadaaradda dadkii aas-aasay ayay ahayd ayay leeyihiin haraadigii dadkii ka soo haray Baabi iyo Atlantis. dadka shacabka Maya ilaa hadda qaarkood haraadigoodii wuu jiraa. xadaaraddii horta way dhuntay oo way baaba'day berigii oo gumeystaha qolyahan Yurubiyaanka ay ku duuleen Latin America. waa dadka loo yaqaan hunuuda ama hindida cascas dadka loo yaqaano waaye ee loogu tagay Latin America. xadaaradooda way dhuntay oo qolyahan mustacmiriinta gumeystayaashii meesha tageena baabi'iyeen, laakiin shacabkoodii weli wax ka nool way jiraan oo shacabka Maya la dhahaa oo waxaa laga helaa Latin America. sida hadda Mexico gobol ka mid ah deegaan siiba dad waxay xigaan badanaa shacabka Maya wuxuu ku badan yahay kaymaha la yiraahdo Amazon.
hareeraha kaymaha Amazon bartanka kaymaha Amazon meelahaas badan laga helaa shacabka Maaya. Marka muuqaalkan intaas uu ku eg yahay, waxaan rajeynayaa muuqaal kale inaan kasoo diyaari doono xadaaradii baaba'day ee Maaya ee ka dhisnaan jirtay Latin America. waxaan idin leeyahay haddii taa markii kugu horeysay aana soo booqata haddii taa waxaan ku leeyahay waa ku mahadsan tahay inaan wax kale faa'iidina rajeynaynaa. haddaa hore noola joogtana waxaan ku leeyahay aad iyo aad garabkeeni aad tahay. muuqaalka intaan uu ku eg yahay, muuqaalada inaan intaan soo koobi karin oo soo kooba isku daya aysan waqti dheer idinka qaadanin. marka waxaan idin leeyahay subscribe, like, share waa xageena. Bye bye.